dal maanta ka horeeya dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba dalkii gumaystay dal 70 sano ka hor ka mid ahaa kuwa dunida ugu faqrisan ee ugu hooseeya xagga nolosha maanta se ah awood dunida hogaamisa dhaqaale ahaan ciidan ahaan iyo aqoon ahaanba India waxay dhacdaa koonfurta qaaradda Asia waa dalka toddobaad ee caalamka ugu baaxadda weyn waana kan saddexaad ee guud ahaan Asia ugu baaxadda weyn sidoo kale waa dalka labaad ee dunida ugu dadka badan waxaana ku nool dad tiradoodu ay kor u dhaafayaan 1.3 bilyan oo qofood waa ku dhawaad 5 meelood meel bulshada dunida ku nool taasi oo ka dhigan in 5 meelood meel dadka dunida ku nool ay yihiin Hindi sanadii 1948 ayay waxay xornimadoodii ay ka qaateen boqortooyadii Ingiriiska xilliga India waxay ahaayeen dadkoodu dad aad u yar kuwaas oo gaarayaan ilaa 300 oo milyan 16% kaliya ayaa wax qori jiray dadkaasi waxna akhrin karayay bulshada reer India xilligaasi faqrigu 70% ayuu dhaafsiisnaa intaa wixii ka dambeeyay India waxa ay qaaday waddo ka dhigtay in ay noqoto awood maanta jaangoysa xaaladaha kala duwan ee dunida aynu ku noolnahay maanta dalka India waa dalka shanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan waxayna ka dhaqaale badan yihiin UK oo ah dalkii gumaystay India xornimadoodiina ay ka qaateen sanadii 1948 sanadii 2018 ayay booska kala baxeen dalkaasi sidoo kale tan guud ahaan qaaradda Afrika ayay ka dhaqaale badan yihiin Indidu waa mid ka mid ah wadamada dhaqaalahoodu aadka u korayo waxna la rajaynayaa in 10 sano ee soo socota ay noqdaan dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan soddon sano ka hor UK dhaqaalaheedu 1 trilyan ayuu ahaa halka India uu ahaa 340 bilyan maanta India dhaqaalaheedu waa 3.2 trilyan halka UK ee dhaqaalaheedu uu gaarayo iminka 2.9 trilyan dhanka aqoonta waxay ka soo tagtay darajo ka hooseysa oo ahayday 16% maanta jaamacadaha ugu sareeya Asia duniduba waxay ku yaalaan dalka India kuwaasi oo inta badan dadweynaha caalamku ay u waxbarasho doontaan maanta 74% in ka badan dadka India waxay yaqaanaan qori yaqaanaan sidoo kale waxna way akhrin karaan dakhli sanadka soo gala qofka Indiyaanka ah celcelis ahaan waa 9,000 halka 70 sano ka hor uu ahaa $70 oo kaliya dakhli sanadka soo gala qofka Indiyaanka ah waa mid ka mid ah wadamada ay ku nool yihiin bulshooyinka kala duwan ee afka dhaqanka diinta isirka midabka cuntooyinka iyo sidoo kale taba deegaankaba dalka waxa looga hadlaa luqado fara badan kuwaasi oo kor u dhaafaya ilaa 122 luqadood oo yaryari luqadda ugu yar ee dalka India looga hadlo waxa ku hadla dad kor u dhaafaya ilaa 10,000 oo qofood 22 luqadood oo ka mid ah luqadaha dalka ayaa waxa ku hadla dad iyaguna kor u dhaafaya 2 qowmiyadood waa dal kulansaday dhammaan diimaha waaweyn ee dunida ka jira 80 dadkiisu waa Hindu halka 14% ay dadka Hindidu ay yihiin Islaam waana dalka ay ku nool yihiin muslimiinta saddexaad ee ugu badan caalamka marka laga soo tago Indonesia iyo sidoo kale Pakistan faqriga Hindiya waxa uu maanta uu ka yar yahay 17% halka faqriga daran ee aadka u hooseeya 6% uu ka hooseeyo aad bayna ula dagaalameen wixii ka dambeeyay tan iyo markii ay xornimada ay qaateen 10kii sano ee u dambeysay dawladda dalkaasi 250 milyan ayay xayndaabka faqriga ay ka saartay kuwaas oo ka mid ah bulshada dalka India waxa ku nool maanta in ka badan 139 bilyaneer kuwaasi oo inta badan ka soo muuqda kaalmaha ugu sareeya ee caalamka 10 jeerna ka badan dhaqaalaha dalalka Afrika ay haystaan waa dal aad u awood badan oo saameyn muuqata ku leh mandiqada u dhaco waa dalka afraad ee ugu ciidamada xoog badan dunida
waa mid hubaysan kuna hubaysan hub uu ka mid yahay nukliyeerka, sidoo kaleetana ka mid ah 5 dal ee dhaqaalaha ugu badan ku baxsha ciidamadooda. dalku wuxuu ka kooban yahay 29 gobol. Gobolka Maharashtra ayaa ah gobolka dhaqaale badan guud ahaanba dalka Pakistan oo diris la ah. Uttar Pradesh ayaa ah gobolka ugu dadka badan, gobolka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee isku darka ah, waxaana gobolkaasi ku nool dad u kala dhashay wadamada Jarmalka, Spain, UK iyo sidoo kaleeto wadamo fara badan oo Ruushku uu qayb ka yahay.